بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا dialogue سدحات dialogue أما conversation سدحات conversation كان سدحات و dialogue between two friends يعني وحود هيا لبا أصحاب أما لبا صاحب سوا أودا تقانان between أو هيا two friends لبا صاحب about أو كسبسن أما كاسو dialogue أما conversation أو كسبسن spending summer vacation. So summer was the warmest season of the year. Ama sida xagaaga, I think xagaaga inuu yaqaanina. I'm not sure. So summer marka waa xilliyeeda dadka badana ay dibadaha ka yimaadaan dhulka kuleelaha ay soo aadaan oo yani damaashaadka ay soo aadaan. Labadan saaxiib waxaa la kala lahaa Cali iyo Bilal. Cali hadalka Bilal wuxuu yiri hello Bilal. Bilalo, how are you? Say tahay. Hello Bilal. How are you? sidee tahay Bilal wuxuu yiri I am fine waan wacanahay ama waan fiicanahay what's up to you haddaad fiiriso conversation kan hello iyo what's up last time waxaan dhahnay waa informal yani kii formalka ahaa maahan formalka waxaa waaye ereya yani khaas ah isku hadla laakiin informal markuu yahay waa hadalka ciyaalka xaafadda so wuxuu yiri I am fine waan wacanahay what's up to you yani sidee isku ka dhacayaan ama say wax u jiraan ama xaalka iga waran Ali wuxuu yiri I am fine I am also fine by the grace of the almighty haddaan fasiro ereyga grace of the almighty grace macnaheedu waxaa waaye jabbaar yani ilaahayga weyn the powerful okay the almighty waxaa waaye powerful great huge omnipotent superhuman all powerful might all those loo adeegsan karaa waa Allah weyn yani wuxuu dhahay waan wanaagsanahay by the grace of Allah yani ilaahayga jabbaarka khaaliqa weyn ama midka awoodda badan xagiisan ka wacanaay yani what are you thinking now yani maxaad ka fikraysaa uri maxaa are you thinking aad ka fikraysaa now yani macnaha waxaad dareemi kartaa Bilal ma iska fadhiyo fikiraya inuu u yimaado Cali marka wuxuu yiri Bilal I am recollecting waxaan dib u ururinayaa aan dib u xasuusanayaa the incident about yani dhacdada oo ku saabsan how I enjoyed the summer vacation qaabkii aan ugu soo raaxaystay ama aan ugu soo dabaaldegay vacationkii xagaaga xilliga xagaaga vacation waxaa la yiraahdaa fasaxa xagaaga so fasaxiisa meel uu ku soo qaatay waa arki doonaa meesha tahay wuxuu dhahay will you please describe it fadlan maad ii describe garaysid ama maad ii faahfaahisid will you please fadlan maad ii describe garaysid ama maad ii faahfaahisid ama faahfaahin aad iga siisid yani summerkaaga qaabka aad kusoo qaadatay ama vacationkaaga qaabka usoo dhacay Bilal wuxuu yidhi yes why not maxaana kugu faahfaahin kara saaxiib soo fariiso wuxuu yidhi I went to my home village at Afgoye waxaan aad u yiri home village yani gurigii home village waxa la yiraahdaa meesha qofku uu ka soo qofa tusaale kale qof wuxuu joogaa Norway ama London ama wuxuu joogaa South Africa laakiin meel uu ka imaaday meesha uu ka imaaday qofkaas ama waxa waaye Xamar ama waa Kenya Nairobi ama waa Cadaado ama waa Dhuusamareeb ama waa Hargeysa meel buu ka imaaday waa home village caasimadda marka laga baxo waalidkiisa ama familka waxay ka soo jeedaa waliba meel gobol ah qasbiyan qof walba oo Soomaali ah gobol uu ka soo jeedaa asaga haduusan tagin xitaa ayaydiis ama qofka asaga familkiisa qayb kamid ah degan so waa home village marka waxa la yiraahdaa meesha qofkaas yani tuulada uu degan yahay qofka ayada ama meesha baadiyaha dadka ay degaan I went to my home village at Afgoye marka wiilkan Bilal wuxuu yiri waxaan aaday gurigaygii home village ka ahaa oo village yani tuulada ahaa ee Afgoye dad badan ay la dagaali doonaan marka home village Afgoye dhaho ayaga waxay ku dhan waa district waa magaalo wuxuu yiri my heart leapt with joy yani wadnayga wuxuu yiri wuxuu dareemay farxad aad u balaaran ayuu la bodbooday when I met some known faces waiting for me marka aan la kulmay when I met waa past tense of meet because hadda uu ka sheekeynaa laakiin marka ayada asaga uu la kulmay hisay meet laakiin hadda wuxuu ka sheekeynaa dhacdadii waxa waaye past tense sheekadan wuu tabinayaa waa wax laga soo gudbay so wuxuu yiri
when I met marka aan la kulmay some known faces wejiye aan garanayo known waa yani aqoon loo leeyahay faces waiting for me oo isugayo waa dareemi kartaa qofka markuu safar ka yimaado tuulida imaado waa la soo dhaweeyaa waa la iskugu imaana waa la wareysanaya cali wuxuu yidhi were they happy to find you among them were they miyay ku faraxsanayeen happy very happy miyay aad ugu faraxsanayeen inay kaa dhex arkaan ama ay ku arkaan inaad ayaga ka mid noqotay marka ayada aad ku darsantay ama ay yani markaad aad meel ku wada kulanteen wuxuu yidhi certainly waxaan dhihi karaa xaqiiqdii ama hubaal they were very happy to find me among them aad ay ugu faraxsanayeen inay arkaan inaan ka mid ahay aan ku dhex jiro ayaga aan soo dhex galay they welcomed me aad ay ii soo dhaweeyeen heartily si qalbiyan I was also pleased with their rustic simplicity wuxuu dhahay waxaa kaloo aad ii soo jiitu yiri ama aad ugu farxay their rustic simplicity waxaan dhihi karaa simple and unsophisticated way of living dadka marka baadiyaha aad tagto kale waxay leeyihiin nolol kale oo aad u sahlan oo sida camal dadka rafaadka iyo dhibka iyo shaqo aad inta ka bax ma jirto xoolaha iska dareersadaan guriga iska joogaan geedaha hoose iskaga shaqaystaan dad simple waa their rustic simplicity what did you do there halkaas maxaad ka qabato yiri cali markuu intaan sheegay ninkan uu yiri waa la soo dhaweeyay waxaana aad ugu farxay their rustic simplicity ama noloshooda raqiiska ama quruxda badan ee yani wax dhibaato ama qahar aan ku jirin wuxuu yiri what did you do there meeshaad maxaad ka soo qabatay ilaa qofku uu baxay already wuxuu la joogaa dadkii bulshadii dadkii hore uga soo badhaxbaxay okay maxuu qabtay markaan aragna bilaal wuxuu yiri during my long stay markaan waxaan dhihi karnaa inuu muddo joogay bil ka badan during my long stay muddada dheereed aan joogay I did a lot of things which gave me much pleasure and joy waxaan qabto yiri a lot of things waxyaabo fara badan taasoo isiisu yiri much pleasure yani wanaag aad u badan iyo joy farxad the most interesting thing yani shayga wax walbood qabato hal shay ayaad ka soo qaadaysaa oo yani aad u sii muhiim aha so wuxuu yiri the most interesting thing shayga aad ugu sii interesting aha ama ugu sii farxadda badan ama ugu sii muhiimka ah wuxuu yiri thing is that the village was free from urban noise yani markaad fiiriso kale lambar 4 Zobe dhulka markaad marayso maalinkii waa dareemi kartaa waa magaalo dhan buuqa sawaxanka baabuurta dadka laakiin village-ka ama tuulada markaad tagto waxaas dhan ma jiraan baabuurtu waa wax ma laha laga yaabaa hal xabo ama 3 bin usbuuc dhan imaadaan buuq dhan ma jiro yani geedaha hoostooda iska degayaa nadiif cali wuxuu yiri didn't you go to the river yani webiga ma soo booqato yiri waa su'aal yani webiga saaxib ma soo booqatay certainly wuxuu yiri yes hubaal xaqiiqdii waan soo booqday so this word certainly was an adverb one day maalmaha kamid yiri my cousin along with his friends set a program of boat riding in the river of Afgoye maalmaha kamid yiri my cousin marka waxaan dhahnaa anaga ina adeerka ama ina abtiga ama sida u taqaanaan dadka qaar habar wadaaga qofka ama adeerka u dhalay ama hooyada ay dhashay laakiin aabba kale u dhalay ama abtiga u dhalay ama adeerka u dhalay yani waa cousin kaaga ama eedada ay dhashay along with his friends iyo saaxiibadii oo wada jiru yiri ayaa waxay noo diyaariyeen yiri program set waxay noo meel dhigeen ama noo diyaariyeen program oo ku saabsan wax la yiraahdo boat riding qaabka loo kaxeeyo doonta in the river of Afgoye webiga Afgoye wuxuu yiri we enjoyed the boat riding greatly waan aadan ugu soo wuxuu yiri aan u enjoy waxa la yiraahdo qofka inuu yani shaygan aad ugu raaxaysto aad ugu farxo aad yani u dhaxgalo yani maalinka si fiican ugu damaashaado enjoy waa damaashaad I enjoyed the boat riding greatly si fiican ugu soo damaashaado yiri doon waditaankii cali wuxuu yiri I see you enjoyed much waan arkaa yiri I see you enjoyed much aad ugu damaashaade did you make friendship with them yani ma la saaxiibtu yiri wuxuu ka wadaa cousinkiisa saaxiibihii la socday saaxiibihiis friendship wax saaxiibtinimo ma la sameysay wuxuu yiri yes I made friendship with some of my cousins friends waxaan la sameeyay yiri saaxiibtinimo ama waxaan la saaxiibay ama aan aad ugu dhawaaday qaar kamid ah cousinkayga saaxiibadii ama ina adeerkay ama ina abtigay ama meeqo yarka habar wadaaga aan ahay saaxiibadii cousins friend personification Allah eraygan kulli waan baran doonaa grammarkan ku baranaynaa wuxuu yiri I visited their homes waxaan ku booqday guryahooda off and on yani
anoo tagaayo ka imaanayo aad mar soo booqanayo mar ka soo laabanayo and enjoyed their hospitality hospitality waxaa la dhahaa yani martigelinta qofka qaabka loo martigeliyo waa hospitality gacmo furan lagu soo dhaweeyo yani qofka waqti fiican la siiyo laga qosliyo loo sheekeeyo yani aan lagu daynin qofka inuu hopeless ka noqdo ama qof yani maskaxiyan ka jira magaalada yani ku dhiban uuna usan noqonin cali wuxuu yidhi oh what a splendid summer vacation it was yani waxay yidhi splendid summer يعني summer qurux badan vacation ama fasax qurux badan ay ahayd mid ayad saaxib had I been with you يعني waxaan dhihi karaa how you feel or يعني hearing what someone says يعني qofka markuu wax kaaga sheekeynayo wixii adiga aad dareemi lahayd haddii lacala aad booskiisa ku jiri lahayd Bilal markuu wuxuu yidhi I also visited a village fair in the neighboring village qof marka Bilal aa soo noqday saaxiibka markuu sheekadii soo dhameeyey oo tuuladii uu uga hadlay Bilal markuu wuxuu yidhi I also aniga naftirkayga visited waxaan soo booqday village fair waxaa la dhahaa meelaha yani annual music festivalka lagu qabto village fair sida book fair oo kale bandhiga heesaha bandhiga tuulooyinka tusaale kale tuulooyinka isku imaanayo bandhigay leeyihiin waxay soo bandhigayaan waxyaabaha ayaga ay hidaha ay dhaqanka u leeyihiin oo neighboring village-ka yani tuulada dariska uu yidhi that was very crowded but enjoyable waxay ahayd uu yidhi mid crowded aad u buuxdo crowded waxaa la yidhahaa inaad yani bulsho ay tahay ama populationka aad uu yahay zaid isugu badan yahay laakiin enjoyable fair too yani waxay ahayd mid aad aan u enjoy yani aan u damaashaaday it will really be nice if you are there aad ay igu wacnaan lahayd uu yidhi haddii aad if you are there with me haddii aad ila joogi lahayd wuxuu yidhi really I feel thrill marka waxaan dhihi karnaa farxad ama shay qofkan uu aad ugu rayaaqo I feel thrill thanks for your nice description aad ugu mahadsantuu yidhi descriptionka aad ka bixisay ama qaabka aad igu faahfaahisay village adiga neighboring village aad soo booqatay Bilal wuxuu yidhi most welcome to you adiga ayaa aad u mudan ama aad u soo dhawow macnaha haddaad ka heshay conversationkan fadlan like sar si uu asxaab badan u gaaro siina share garay ku share garay asxaabta ama bahda jecel waxbarashada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu